sheekh cabdiraxmaan mukhtaar oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta xadhig ka jaray masaajid cusub oo laga hirgeliyey xaafadda magaalada jimcaale ee degmada axmed macalin haaruun ee magaalada hargeysa. masaajidkaasi waxaa dhismihiisa hirgeliyey xaaji ismaaciil maxamed cumar caanageel islamarkaasina u sadaqeeyey labadiisa waalid. ugu horreyna waxaa ka warramay khayrka badan ee ku jira dhismaha masaajidada sheekh cabdilaahi maxamed cumar waxaana uu yidhi masaajidkan dheedheel kuma imaan dadaal badan buu ku yimid waxqabad badan buu ku yimid dhaqaale aan isku soo aruurina laakiin xooggiisa iyo xoolihiisaba waxaa geliyey walaalkeen ismaaciil maxamed cumar caanageel oo hadda dhabarkayga taagan ummado badan oo reer maxamed cumar ka mida iyo waxay dhaleenba intaa ka sokow waxaan kaloo mahad gaara u celinaynaa intii masaajidkan gacanta gaarka u geysatay sida xaaji jimcaale oo runtii garab weyn iyo gacalba aanu ka helnay intaanu meeshan joognayna si wanaagsan wax noola waday kale oo furitaankii masaajidkaasi ka hadlay xaaji ismaaciil maxamed cumar caanageel oo sheegay in baahi weyn ay xaafadani u qabtay masaajid inay hesho. maanta farxad weyn runtii ii ah in aan arko masaajid aan ka soo bilaabay dhulkaas bannaanka ah isagoo ah maantana saa u dhisan yahay arkaysaan in maanta aan arko in la furo maanta ilaahay ku mahadiyataas mahadaas ilaah baa iskale marka runtii waa masaajid aad iyo aad u adag oo isleeyahay dee boqolaalka sano u gaari doonaa ilmaheena dhalo ama si dhal ayaa ku tukan doona insha allah waxaan ka rajaynaya in aan arko anigoo bilaa boqol hadda ilaaha gaari kare da gaaro oo soo gababo imaado oo ilaa masaajidkana buuxa inaan arkaan rajaynaya ilaahay idigiis waayo wuxuu ku agyaalaa wadadii weyneed ee 200 ee berbera corridor oran jiray nin walba oo safara waxaa rajaynaya inuu kusoo tukan doono meeshaan ku iman doono waxaa mahad gaara iska leh dadka meeshaan degan oo si wanaagsan igala shaqeeyey oo isoo dhaweeyey ha ugu horeeyo suldaan jimcaale maxamed ciise caduur ayaa isna waxa uu sheegay in uu ka qayb qaatay dhismaha masaajidkaasi islamarkaasina waxa uu mahad celiyey dadka muxsiniinta ee masaajidkaasi hirgeliyey. hadalladii suldaankana waxaa ka mid ahaa alxamdulilah oo masaajidkii shanaadeen ku dhisnay magaalada jimcaale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad ninkaa dhisay masaajidka waxaan leeyahay malcaamadii haddaad dhisi kari weydo anigaa u diyaara ya intay ku kacasina gelinaya insha allah. culimaaudiin kale ayaa iyaguna sidoo kale ka hadlay khayrka badan ee ku jira dhismaha masaajidada. taliyaha saldhigga xaafadda jimcaale ee degmada axmed macalin haaruun ayaa isaguna sidoo kale u mahad celiyey dadkan khayrka badan ee hirgeliyey dhismaha masaajidkaasi. masjidka maanta la furay waa masjid waalidiin waxaa loo dhisay maxamed cumar cabdalle iyo xaawo xuseen boore oo ah waalidiintii loo dhisay masaajidkani oo ay dhaleen labada nin halkaa ka soo jeedo caanigeel iyo cabdulaahi maxamed cumar ay u dhiseen marka allaha gaarsiiyaan leenahay ducadii halkaa ugu talagaleen tacab badan baa galay masaajidkan oo arkaynaa waxaana qayb ka qaatay sida la sheegay waana goobjoogna u ahaa suldaan jimcaale. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay sheekh cabdiraxmaan mukhtaar oo ka socday wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaana uu yidhi masaajidka quruxda badan ee aadka u wanaagsan ee inoo soo kordhay waa khayr inoo soo kordhay waxaynu u ducaynaynaa walaalihii dhisay iyo kuwii dhulka bixiyey iyo kuwii kale ee ka qayb qaatay dhismihiisa intay doonaan baa kaga qayb qaataan waxaanay u niyoodeen sida magaciisaba ka muuqata labadoodii waalid ilaahay dambi dhaaf ha uga dhigo ilaahay naxariis ha uga dhigo ilaahay beydkaasay ugu dhiseen maanta adduunyada